waalido badani aad waxay ugu warwaraan ubadkoodu inay xoolo badan yeeshaan inay guryo badan dhistaan inay aqniyo noqdaan waxaase ka muhiimsan cilmiga ka muhiimsan in lagu dadaalo inay culamo noqdaan taasi aad iyo aad bay muhiim u tahay waayo maalku waa dhammaanaya mulkigu waa tegayaa cilmiguna waa baaqi noqonaya culamada qaarkood aan xoolo badan lahayn oo qaarkood yacni gaajo yacni ku sabraayey iyo dhibaato ayaa cilmigoodii meel walba ka dhacay markaasaa ilaahay barakeeyey markaasaa fii kulli qutrin wa fii kulli beled baa cilmigoodii laga akhrisanayaa iyagoo waa hore iska dhintaa ajarkoodii u soconaya dadkii xoolaha badnaa xaggay ku dambeeyeen ya maxaa aasaartoodii ka baaqi ah maanta haddii la eego niman tujaaroo hore oo markaysa tujaar ahaa oo aad u waaweynaa maanta waxa weeye dadka markaa agtooda dee aad looma yaqaan beri baa calan u taagnaayo la odhan jiray taajir hebel beledkeennaba ka soo qaad tujaarta qaarkooda aad u sheeganaa oo waagay noolaayeen yacni waxa weeye siday u caanka ahaayeen iyo sida xoolahooda u badnaayeen ay la yaab lahayd ayaa maanta raadka ka baaqiga yar yahay xagga xoolahoodii xooluhu waa iska tegayaan ya maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq waxa agtiinna ku sugani waa dhammaanaya qaaruun xoolihii ilaahay inooga sheegay dee aad bay u badnaayeen maxaa xoolihiisii ka baaqi ah shayna kama baaqi aha kuwii muluugta ahaa ee boqorrada ahaa maxaa ka baaqi ah shayna kama baaqi aha ahlucilmiga qaarkood waxay ka warrameen qiso boqorradii qaarkood shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku soo naqlinayaa asiyaasa sharciya wuxuu tilmaamayaa boqorradii qaarkood muslimiinta soo maray maalintii ay dhinteen tafiirtoodu xoolaha inay u qaybsadeen wax khayr caadi ah 100,000 oo diinaarku dahab buu ka samaysnaa waa mid waliba qaata hadda waa 100,000 waxaan filayaa inuu odhanayay waa ka eegi doontaan kitaabkee min 600,000 oo diinaar ya ayaa mid waliba qaata zaman yar dabadeed waxa la arkay iyagoo wada dawarsanaya ya intay isu jirtaa ya waqti yar dabadeed baa la arkay iyagoo dawarsanaya yatakaffafuuna annaas maal qiima ma leh aljuucu yutradu biraqiifi alyaabisi falima taksuru xasratii wa wasaawisi gaajada roodhi qallalan baa lagu eriyaa maxay markaa tiiraanyadayda iyo waswaaskaygu muxuu u badanayaa xaggaad adduunye ka gaadha xaggaad ka haabataa xaggaad ka heshaa war cilmigaa faa'iido badan ya alimaamu nawowi xoolo ma dhaqan reer ma samaysan ubad ma yeelan ilaahay baa cilmigiisa barakeeyey kutubihiisa akhdaarta adduunyada iyo beledada adduunyadao dhan baa laga akhristaa jamiicu lfiraq waa akhristaa qolo odhanaysa nawowi naga daa ma jirto dawaa'ifta sunniyuhum wa bidciyuhum sunnigooda iyo bidcigoodu mid waliba waa akhristaa qabuul baa ilaahay siiyey hadday tahay riyaadu saalixiinka hadday tahay arbaciinka hadday tahay aladkaar hadday tahay waxa weeye kutubta fiqigee uu qoray shaaficiy oo dhan baa ka daba dhacday ilaa ay yidhaahdeen ashaykhaan oo raafici iyo nawowi labada shiikh ay yidhaahdeen minhaajkiyo rawdo sida looga daba dhacay wa khaasatan minhaajka wax looga daba dhacay ma jirto oo kutubta shaaficiye ka mid a sharaxa saxiixu muslim eeg jamiicu dawaa'if baa taalacanayso akhrisanaysa marka qabuulku waa min allah ruuxu isagoo iska dhintay ayaa 100 sano ajarku u soconaya oo saacad walba qof kastoo ka faa'iidaysta kitaabkuu qoray baa ajar looga qoraya dee wax taa la qiimiye ma jirto xooluhu waa tegayaan war ubadka ha lagula dadaalo cilmiga iyo barashadiisa iyo siday culamo u noqon lahayn
dad fara badani waxay ku cabbeeyaan carruurtooda war shaqayso war wax tabco war xoolo yeelo war fadhiga ka kac war talabka cilmiga in lagu kiciyo ya ruux dhalinyari isagaba adduunyada iskaga maman inaad waxba tukhayso uma baahna ee xagga cilmiga ayuu u baahan yahay in lagu baraarujiyo oo lagu booriyo oo loo tilmaamo adduunya iyadaaba u hilaacaysa isagaaba faraha hore ku taagan mar hadduu ruuxu dhalinyaro yaho adduunya u cusub tahay haddaad adigu sii tukhiso dalabkii waad ka tuuri war dalabkaa ka riid wuxuu ku jiraa boorintu iyo markaa waxa tirtirsigu xagga cilmiga iyo diinta in lagu tirtirsiyo adduunyada isagaba iskama naftaa ku maman oo ku tagan ya laakiin xagga cilmiga iyo khayrka iyo barashada diinta iyo istifaadada iyo inuu sii faa'iideeyo iyo inuu markaa caalim noqdo iyo inuu markaa siduu kutubo u qori lahaa oo yacni ajarku ugu socon lahaa liajli illaah ya taas iyadaa markaa waxa in lagu baraarujiyo niyadaa inuu markaa la yimaado qofkuna waxa weeye niyadii uu sare u qaado xataa niyada khayrka uu qofku niyeeyo hadduuba gaari waayo inuu caalim noqdo niyadiisu hadday ahayd inuu caalim noqdo ya wa inamaa likulli imri'in maa nawaa nebigu muxuu yihi sala allahu alay wasalam inama alacmaalu biاnniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa camalladu waxay ku ansaxaysaa niyooyinka ruux walbana waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo hadduu niyeeyo inuu noqdo caalim bishariica liajli illaah laa lilmuraa'ah istusnimo iyo wax la mida iyo yacni mansib adduunye iyo magac adduunye iyo wax la mida aanu uga jeedin ee liajli illah inuu noqdo caalim biamri illah caalim bishariica caalim biddiin naasir lilmilla ya sunnada mid noolaynayo milladii sare u qaadayo shareecadii jadiidinayo yacni dadka khayrka ugu yeedhayo khayrka u horseedayo liajli illahna sidaa u samaynaya hadday niyadiisu tahay hadduuba gaari waayo niyadaa loo qaadayo qisadan ku khatimaya waxay tahay sheekh culammadii hore ka mida ayaa waxaa la yidhi inaan dhallinyaro abaa u yimi xalqaddii buu la soo xidhiidhay maalmuu duruustii dhegaystay markuu maalmo duruustii dhegaystay ayaa geeridu u timi geeri degdeg ah inankii baa dhintay inankii markuu dhintay baa ardaydii mid ka mida ku riyoodo wuxuu ku riyooday inankii culammada lala soo saaray oo jamaca culammada ku jira sheekhii baa qisada loo sheegay markaasaa waxaa lagu yidhi inankii maalmihii dhoweyd inoo yimiye dhintay waxaan ku riyooday isagoo safka culammada ku jira oo jamacii culammada lala soo saaray dee inankuna ibtidaa'i buu ahaa markaasuu cilmiga bilaabaya waa bilow sheekhii waa ka jawaabo wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa niyo ilaahay dartiya inuu caalim noqdo liajli illaah inay ku jirtay oo uu sidaa niyeeyey oo deedna niyadiisii loo qaaday wa inamaa likulli imri'in maa nawaa saasaa laga yaabaa buuri riyooyinka oo kale waxaa loo sheegaa min baabi alistinaas lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat waatuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam marka caawa calaa kulli xaal waxaynu uga jeednay muqadimo aynu sheikha tarjamadiisa ayaynu ku gaabsanaynaa marka in sha allahu tacaala habeen dambe ayaynu markaa dersiga sii guda geli doonnaa halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika